السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن أخياري ملكستو أجوكتان كسور وهذا برنامج كأنه هبين نمو وهبين نمو إسنين أو ثلاثة سوق ليسو تاريخ دونه وكوبية تبقى بشا أغسطو سنة كالبكون يشان يلباتن وأنه باينا سوى نوهشين وراركي معلومات دي أنه كسو قد بناي برنامج ديني قلب نمو إيكي صبح نمو عاو برنامج كوحنا كوايا ورار حيسة له qaar ka mid ah duuliyayaasha diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan siyaasadda Netanyahu uu ku doonayo in mar kale weerar ballaaran lagu qaado Gaza oo lagu qabsado waxayna sheegeen Brito waxaanu jeclaysan Netanyahu inay samayn doonaan duuliyayaashaas haddaba tolow maxay samayn doonaan warbaahinta Israa'iil maxay ka sii sheegeen talaabada ay qaadi doonaan boqolaal ka mid ah ciidamada cirka Israa'iil haddaba arintan oo aad loo hadalhayo caawa gudaha Israa'iil ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa Donald Trump oo arin ku saabsan Hamas kala hadlay Israa'iil haddaba muxuu sheegay war hadda goordha uu soo saaray isagoo u waramay jirada la yiraahdo Axios ee Mareykanka ayaynu iyana barnaamijka ku faahfaahinaynaa wafdiga Hamas ayaa gaaray maanta magaalada Qaahira talow maxay kala kulmi doonaan masaarida oo u yeertay iyo waliba qaybta dambe waxaanu ku eegi doonaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo hanjabaad dil ah u diray ayatullaahiga hogaamiya Iran inta ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladanadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan